oo ay ku soo biireen musharaxiin olaha doorashada Soomaaliya ayaa waxa uu marayaa meel xasaasi ah iyadoo shacabka Soomaaliyeed ay u dhiga taagayaan hadba halka uu maraya xaalka iyo loolanka u dhaxeeya murashaxiinta laakiin wajiga koowaad ee loolanka ayaa waxa uu noqonayaa mid adag oo ay ku soo biireen musharaxiin ka soo jeeda beesha Daarood kuwaasi oo doonaya inay qaataan kursiga gudoomiyaha baarlamaanka ama golaha wakiilada sheekada xiisaha badan waxa ay tahay halkee ku dambeysay qorshihii Cumar Cabdirashiid oo lihii waday ee Noomar Abgaal iyo lacagtii uu ka naawilayay dawladda istaga Imaaraadka Carabta warbixin ay qoreen sirdoonka reer galbeedka dawladaha qaarkood oo warbaahinta waaga cusub ayaa waxay ka dhigantaa sheeko xiiso badan waxayna warbixintu sheegaysaa in cadaadis weyn ay la kulato dawladda Imaaraadka Carabta kadib markii ay si furcadiyo u sheegtay inay garab taagan tahay oo ay hiil iyo hooba la garab istaagi doonto murashaxa Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke dawladaha Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa waxa ay ku cadaadiyeen Imaaraadka Carabta inay ka laabato go'aankaas kadib markii dawladda Turkiga ay ka dacwootay iyo dawladda Mareykanka oo khilaaf siyaasadeed u dhaxeeyay ku eedeysay inay ka mas'uul tahay ama ay ka dambayso ololaha Imaaraadka Carabta ay wadaan dawladda Imaaraadka Carabta oo doonaysa inay daboosho qadiyada xasaasiga ayaa waxa ay dib u suuq gelisay dacaayad ku aadan in ay Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke kala laabatay go'aankii ay ku taageerisay hase yeeshee warbixinta ay qoreen sirdoonka reer galbeedka ayaa waxa ay tibaaxday in Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke la siiyay lacag dhan $30 milyan iyo safarkiisii hadda ugu dambeeyay ee uu ku tagay Imaaraadkana la siiyay lacag $3 milyan ah lacagta $3 milyan ee Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke la siiyay ayaa lagu yiri lacagtani waxay noqonaysaa gobol xaad lacagta $3 milyan ee la siiyay Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo boorsiis hore ugu qaatay ayaa waxa ay tahay lacag la doonayo in guyo ugu hagaajiyo xildhibaanada taageersan sidoo kale lacagta $3 milyan ayaa laga doonayaa Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke inuu ugu gogol xaaro oo loo ku joojinayo in gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya loo magacaabo nin u dhashay beesha uu ka soo jeeday ee Daaroodka dawladda Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke sidoo kale sii doontaa $27 milyan sida warbixintu sheegtay waase hadii Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo ka hortago in gudoomiyaha baarlamaanka loo doorto nin u dhashay beesha oo ka soo jeeday ee Daarood gaar ahaan waxa Imaaraadka Carabtu il gaar ah ku eegayaan xildhibaan Cabdirashiid Xidig iyo xildhibaan Cabdi Shire iyo Arjecel oo labadaba la filayo inay u sharaxaan gudoomiyaha baarlamaanka haddii xilkaas uu ku soo baxo qof u dhashay beesha Daarood dawladda Imaaraadka Carabta waxa ay la laaban doontaa lacagtaasi $27 milyan warbaahinta waaga cusub heshay waxa ay sidoo kale saadaalisay codka uu heli karo Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke haddii uu doorashada u tartamo oo uu ku guuleysto in gudoomiyaha baarlamaanka aan loo dooran inuu dhashay beesha uga soo jeedo Daarood warbixintu waxay sheegaysaa in Cumar Cabdirashiid uu heli doono codan 63 xildhibaan hase yeeshee dhinaca kale warbixintu waxay tibaaxday in Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweynaha xilligan ee Koonfur Galbeed inuu noqon doono musharax adag waxayna warbixintu sheegtay in Shariif Xasan oo loo yaqaan Shariif Sakiin uu wado olihii ugu balaaraa ee musharaxnimadiisa isagoo isbahaysi la sameystay ama heshiis la galay madaxweynaha Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed oo isagan lagu wado inuu toddobaadkan iscasilo oo iska casilo madaxweynimadiisa Galmudug kadibna uu ku dhawaaqo inuu yahay musharax madaxweyne warbixintu waxay tibaaxday in Shariif Xasan Sheekh Aadan uu gudoomiyaha baarlamaanka la doonayo inuu dhashay beesha Daarood gaar ahaan ogaadeen lagu magacaabo Cabdirashiid Xidig ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kaas oo siyaasad ahaan ku daaban ama la saaxiiba dawladda Itoobiya halka sidoo kale ay sheegtay in madaxweynaha Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed uu doonayo in gudoomiyaha baarlamaanka loo calaamay saar ama loo doorto xildhibaan Cabdi Shire iyo Arjecel oo isagana u dhashay beesha Daarood gaar ahaan Mareexaan Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa la sheegay in ay ka midaysan yihiin qadiyad ah in Xasan Sheekh Maxamuud iyo musharaxiinta u dhashay beesha Abgaal aysan ku soo bixin marnaba doorashada madaxweynimada Soomaaliya hase yeeshee wariis loo meel dhigin cidda ay labadoodu u oleyn doonaan in gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya loo doorto kaas oo ah qof ka soo jeeda beesha Daarood
warbixintu waxay tibaaxday in haddii Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Cabdikariim Xuseen Guuleed ay ku guuleystaan in qof u dhashay beesha Daarood laga dhigo gudoomiyaha baarlamaanka in Shariif Xasan Sheekh Aadan uu yahay madaxweynaha Soomaaliya waxayna warbixinta lagu sheegay inuu heli doono ugu yaraan cod gaaraya ama uu ku guuleysan doono 219 cod halka warbixinta sidoo kale ay sheegtay in madaxweynaha Soomaaliya ama madaxweynaha ku-meelgaarka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu haysto ama uu heli doono codan 83 cod warbixinta waxay tibaaxaysaa in Xasan Sheekh Maxamuud ku adkaan doonto inuu helo cod inta dheer laakiin dhinaca kale warbixintu waxay xusaysaa in uu yahay musharaxa ugu lacagta badan murashaxiinta Soomaaliya iyadoo warbixinta hoosta ka xariiqday in Xasan Sheekh Maxamuud uu haysto lacag fara badan hase yeeshee uu hadda u qoondeeyay oo la doorashada lacagdan 32 milyan oo dollar taasoo qayb ka mid ah ay ku bixi doonto sidii looga hortagi lahaa in gudoomiyaha baarlamaanka loo caleemo saar ama loo codeeyo oo loo doorto qof u dhashay beesha Daarood hadiise Xasan Sheekh Maxamuud looga adkaado in qof u dhashay beesha Daarood gudoomiyaha baarlamaanka looga codeeyo waxay taa ka dhigan tahay in la macsalaameeyay warbixintu waxay sheegaysaa in haddii Shariif Xasan uu ku guuleysto in gudoomiyaha baarlamaanka uu keeno Cabdirashiid Xidig ay taamicneedu tahay in uu noqon doono qofka ugu codka badan hadiise Shariif Xasan ku guuldareysto in qof u dhashay beesha Daarood uu gudoomiyaha baarlamaanka ka dhigo waxa loolanka ugu adag oo dhex mari doona Umar Cabdirashiid علي شرماركي iyo حسن الشيخ محمود iyadoo Umar Cabdirashiidna codku helayo ay yihiin 62 halka حسن الشيخ محمودna uu heli doono 83 warbixinta waxa lagu sheegay in xildhibaanada kan ugu yar codka lagu kala iibsan doono lacagdan 100,000 oo dollar laakiin dhinaca kale warbixinta waxa la sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu noqon doono qofka la tartamaya saddexaad ee wareegga saddexaad la soo gaara حسن الشيخ محمود iyo Umar Cabdirashiid taas oo ka macnaa in labadoodaba ay wada bixi doonaan warbixinta oo aad u xiiso badan waxa la sheegay in dawladda Imaaraadka Carabta iyo dawladaha reer galbeedka qaarkood ay seexinayaan oo hurdusinayaan madaxweynaha xilligan xilka sii haya ee Xasan Sheekh Maxamuud warbixintu waxay leedahay dawladda Itoobiya ayaa waxay u sheegtay Xasan Sheekh Maxamuud inay kala hadlayso dawladda Imaaraadka Carabta hase yeeshee isla dawladda Itoobiya ayaa lafteeda waxa ay soo sharaxaysaa oo ay wataa Cabdirashiid Xidig inuu noqdo gudoomiyaha baarlamaanka kadibna madaxweynaha Soomaaliya uu noqdo Shariif Xasan Sheekh Aadan hadiise dhinaca kale Umar Cabdirashiid Ali Sharmaarke uu noqdo madaxweynaha Soomaaliya waxa uu kala dooran doonaa ninka ay la yimaadeen ama ay wataan xukuumadda Itoobiya oo Cabdullaahi Sanbalolsh haddana ah madaxa ololihiisa doorashada haddii kale waxa uu qaadan doonaa soo jeedinta Imaaraadka Carabta taasoo ah in Jibriil Ibraahim Cabdulle uu ka dhigo ra'iisul wasaaraha waxay isweydiin tahay oo aan warbixinta lagu xusin kooxaha ka soo horjeeda ama ka siyaasadda ah Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxda Majdiid yay u wataan gudoomiyaha baarlamaanka marka laga reebo Shariif Xasan Sheekh Aadan oo bareeyay sacadeystay lama oga ilaa hadda Umar Cabdirashiid Ali Sharmaarke iyo Xasan Sheekh Maxamuud laftiisa cid ay wataan gudoomiyaha baarlamaanka laakiin marka la dhaariyo xildhibaanada beesha Digil iyo Mirifle ayaa waxa soo bixi doona ugu yaraan 5 murashax oo u tartami doona gudoomiyaha baarlamaanka warbixinta ay sirdoonka reer galbeedka qaarkood faafiyay rumida hore ee maanta waxa kale oo lagu sheegay warbixinta in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed uu lacagdan 15 milyan oo dollar ka soo helay dalka ama dawladda South Africa warbixinta sidoo kale waxa lagu xusay in ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hore dad badan ay u maleeyeen inuu saysan dhaqaale hadda uu lacag helay iyadoo warbixinta ay sheegtay in lacag lagu qiyaasay ilaa 12 milyan oo dollar oo ka helay qaar ka mid ah shirkadaha shidaalka ee doonaya in Soomaaliya ay shidaal ka baartaan waxayna warbixintu sheegtay in toddobaadkan ama maalinta Talaadada uu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo tigi doono Soomaaliya
sidoo kalena warbixinta waxaa lagu xusay oo lagu soo qaatay in murashaxiin kale ah Jibriil Ibrahim Cabdulle iyo Cabdiqaadir Cusable ay safiirka Imaaraadka Carabta kula kulmeen magaalada Nairobi ee dalka Kenya laakiin warbixintu ma sheegin in dhaqaale la siiyay iyo in kale sidoo kale warbixinta waxaa lagu xusay in murashaxa Cabdiraxmaan Cabshakuur oo dhowr safar isaga daba laalaabtay Muqdisho iyo Nairobi isagoo qudareynayay in dhaqaale ay ka sugayay dawladda Imaaraadka Carabta uu helo laakiin ilaa hadda Cabdiraxmaan Cabshakuur dawladda Imaaraadka Carabta wax lacaga ma aysan dhinaca kalena warbixinta waxa ay xusaysaa in murashaxa Cabdinaasir Maxamed Cabdulle Suuley uu Muqdisho shalay kula kulmay ganacsato iyo xildhibaano u dhashay beesha Habargidir isagoo uga hadlay waxa uu watiiqadiisu waxay tahay laakiin kulan ay yeesheen sida warbixinta lagu xusay 20 xildhibaan ee beesha Habargidir waxa ay ku go'aamiyeen in ay dib isugu laabtaan oo gud degdeg loo saaro in la kala reebo murashaxiinta hadda taagan ee tartamaya ama la soo xiro murashax kale oo ka madax bannaan warbixinta waxaa lagu sheegay inay yaraad doonto rajada uu leeyahay madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo la saaxiiba Xasan Sheekh Maxamuud inkastoo dhinaca kale shaki laga muujiyay in Cabdikariin Xuseen Guuleed uu olole ugu jiro Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayo inuu ogaado macluumaadka iyo xogta Shariif Xasan Sheekh Aadan laakiin dadka kale ee ka madax bannaan arrimahan ama ala sheekaysanay waxa ay leeyihiin Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo Xasan Sheekh Maxamuud xilli hore ay u kala dhamaatay waana ka dhab oo laha wato laakiin su'aashu waxay tahay Cabdikariin Xuseen Guuleed ma helayaa codka xildhibaanada Habargidir dadka qaarkii waxay ku jawaabayaan maya marka loo eego xubnaha soo galay ee matalaya beesha Habargidir ee ku jiro golahaas aqalka sare iyo aqalka hoose dhinaca kalena warbixintaani ay qolooyinka wardoonka reer galbeedka ee xarumaha ku leh xalane qoreen waxaa lagu sheegay in madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas oo cadaadis xoog kala kulmay dawladda Kenya oo ku cadaadisay in uu taageero Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyadoo dawladda Kenya ay ku adeeysay madaxweynaha Puntland inuu ka leexleexanayo muddo dheer inuu taageero uu siiyo dadka u dhown arrimaha siyaasadda waxay leeyihiin dacwadaasi waxay ahayd mid uu cabasho ama dacwad oo Cumar Cabdirashiid u gudbiyay dawladda Kenya oo uga codsaday in ay cadaadis saaraan madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke taariikhiyan wuxuu ahaa ra'iisul wasaarihii saxiixay in badda Soomaaliya la siiyo dawladda Kenya iyadoo hadda la filayo ama dadku ay leeyihiin waxay cadaadis u saarayaan beesha caalamka ama dawladda Imaaraadka Carabta iyo Kenya Norway ay Cumar Cabdirashiid ugu oleynayaan inuu yahay nin bixin doono badda Soomaaliya iyo kheyraad kale ee la weydiisto dawladda Kenya ayaa cabsida ugu weyn ee qabsida warbixintu sheegtay waxay tahay dacwadda kaga fur maxkamadda ICJ-da ee dalka Netherlands ku taala taas oo la filayo inay dhawaan soo saarto go'aan degdeg ah laakiin muddada doorashada ka hor ma noqon doono mid soo baxa go'aankaas waxayna dawladda Kenya Norway iyo Imaaraadka Carabta naawilayaan in Cumar Cabdirashiid uu dacwadda joojin doono haddii uu noqdo madaxweyne Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke inkastoo uu ku eedeysan yahay in uu yahay ninkii badda Soomaaliya siiyay Kenya haddana waxa ay taalamida xambaarsan Xasan Sheekh Maxamuud oo ah madaxweynihii u magacaabay ama ka dhigtay ra'iisul wasaare qof ku eedeysan khiyaano qaran si kastaba ha ahaatee warbixinta ugu dambeyn waxa ay tibaaxaysaa in dawladda Itoobiya marnaba aysan ka raali ahayn in Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ay taageerto dawladda Imaaraadka Carabta waxayna dawladda Itoobiya xasuusta ayaa leeyahay in dawladda Imaaraadka Carabta sidaasi oo kala dhaqaale ahaan ay taageertay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed hase yeeshee dhaxalkii ama faa'iidadii ka soo baxday taageerada ninka la siiyay in noqotay in kumanaan kun oo ka tirsan askarta Itoobiya ay ku dhinteen gudaha Soomaaliya iyadoo ugu dambeynna ay geeriyootay ama ay weeqantay rajadii dawladda Itoobiya iyo Imaaraadka ay kala hayeen Soomaaliya sheekadan xiisaha badan oo aan qaada dhigi doono siina wadi doono oo aad la socon doontaan maalin walba saacadahan oo kale waxaad ka dheehan kartaan website-ka wagacusub.com ama sidoo kale waxa aad
ka baaran kartaan barta aan ku leeyahay YouTube-ka ee journalist Daahir Calasow.